بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan rabaa inaan la qaybsado tacsida ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allah u naxariistay hooyo Khadiijo Maxamed Diiriye qabrigeeda Allah u waasiyo maanta oo kale runtii waxyaabaha aadka loogu baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ayaa in maama Khadiijo ay u duceeyaan runtii waxay ahayd hooyo inta badan dhalinyarada u roon gacan badan ku haysay dhalinyaro badan iyo dad badan runtii ay ku hoos noolaayeen waxaan leenahay Allah u naxariiso qabriga Allah u waasiyo waxaan kaloo rabaa inaan hal dhacdo oo aan maama Khadiijo ku xasuusto inaan bal maanta idin la wadaago maadaama wanaageedii iyo wixii ay soo qabatay ay dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka wada sheekeynayaan dhacdada aanan ilaawin waxay ahayd xilli aan u shaqeynayay telefishinka qaranka oo hawlo shaqo laygaga diray magaalada Nairobi anoo joogo xildhibaano shir ku leh garoon ku yaalo Jomo Kenyatta agtiisa ayaa subax waxa laygaga diray shaqo xilliga runtii awood uma aan lahayn transportation inaan iska bixiyo 2016 inay aheedan jeclahay waan baxay garoonkii mar meel u dhow hotelka ku yeelay taxi aan qaatay taxiga maanan heenin wax aan siiyo meeshii marka aan tagay waxa la dhahay shirkii waa uu baaqday saxaafadna looma baahna aniga olba TV qaranku baa loo wacay dhinacyadan fiirfiiriyay baageegii aan ku laaban lahaa ma hayo taxigana lacag badan oo markay garoonka noqoto ugu yaraan $20 $30 ayuu u baahnaa taxiga hooyooyin badan oo aan hay'ad ka wada shaqeyn jirnay oo Khadiijo Maxamed Diiriye ay kamid tahay hay'ad leeyahay CCD oo aan halkan ka salaamayo dhamaan dadkii ka soo wada shaqeeyay ayaan halka kula sheekaystay oo xildhibaano iyo dadka hadda howlaha magaalada Muqdisho wado dhan waxay badankood u badan yihiin dadkii hay'adda ka soo shaqeyn jiray oo hay'ad inta badan marxalado kala duwan dad badan soo saartay muxuu ahaa waana dadka hadda badan inta badan siyaasadda ku jiro maamulka gobolka Banaadir ururada haweenka culimaa u diinka dhinacyadaas oo dhan hooyooyinka meesha ku sheekaysanay runtii way idareentay hooyo Khadiijo Maxamed Diiriye indhahayga ay waxay ka dareentay in xaalad aan ku dhex jiro waayo aniga inta aan sheekada wado waxaan ka fikirayay qof aan isleeyahay alla ilaahay kuma ceeboobi doontid oo aan transportation ka qaadan raadinayo waxay tiri maamo koran fuulaya ha iga tagin koronto way soo laabatay cabaar kadib way soo degatay ayadoo lacag gacanta intay soo duubto ku wado haye wiilkaygiyo xamara isku arkeenna intay tiri ayay lacagtii $100 ee maama Khadiijo Maxamed Diiriye gacanta ii gelisay $100 runtii oo iiga qiimo badnaa wuuna iiga weynaa lacagihii soo mari jiro sababtoo ah xaaladda subaxaas haysatay ayaa waxay ka tarjumaysay xaaladda runtii dhacdadan waxaan isdhahay bal maadaama maamadii Allah u naxariisto qofka inta badan markuu geeriyoodo wanaagiisa laga sheekeeyaa Allah u naxariisto qabriga Allah u waasiyo runtii dhalinyaro badan iyo dad badan oo ay soo caawisay oo ay soo garab istaagtay iyo dad badan oo ilaa hadda ay gacanta ku haysay ayaa maamada jiro qof waxay ahayd dhiig leh dhaqdhaqaaq badan guriyaasha gurigeeda ayaa xilliyada doorkii qaday u doonan jireen uu u furnaa albaabkeeda maamo waxaan leenahay dhamaanteen Allah u naxariisto qabrigana Allah u waasiyo gadaasheedna Allah nama fidneeyo walaalayaal assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh